مددي أفرت بلوده هاي أقل كاني وحو ياشي سقالي اللباتن كلان أو كلا دوان وأن كفلان قيني الرماها نهريا لي مددي كالفردقة كوبان وحكالان سمي سني سقال قدي أو كلا دوان أو مد ولبا هاوليسو كعاديين حير هوسات ما دام أقل كان لقو صدورتي دولة قبلية هذا وحابو قشوين أقوان سويدارسي هي تلبحين لقو آدي دونا دمان دولة قبلية هذا دلك سيلولا كلمو مدحدة سريع دولة مدحوين ومناسبات آد فرحات إيجلينيسا قف أهان إيو قدومي أهان لبضبا إن ما أنت أن قبجو كنا هاي فوريتانكا كالفردق اللباد أغل كستريع برلمان كفيدرالكا وحنباليو إيو بوغادين با وأن أجيدين إيا أغل كستريع قدوم كيسا كنا مدحوين هورتا هذا أن قبل لنقالي دمان شعبي بالصومالية إيو أغل كستريع إن قولها الشعب سوى الدنينما كدهان أو داعد أيضا لو دنينايو وناقة دانتي iyo wanaaga guud ee ummadda Soomaaliyeed in aan la wada shaqeyn doono aqalkan sida ugu wacan ugu degan ugu hufan ugu mihnadyahanimo ah aan ula shaqeyn deen ayaan hortiina ku ballan qaadayaa waxaan u sheegayaa sanatarada halkan isugu yimid in la idin soo igmaday inaad isu soo dhaweysaan xiriirka dawlad goboleedyada iyo dawladda federaalka waxaan sheegayaa in la idin igmaday inaad ka odayeysaan ummadda Soomaaliyeed waxaan sheegayaa in la idin igmaday inaan ummadda Soomaaliyeed dhibka ka saartaan inaad isu soo dhaweysaan inaad ummadda Soomaaliyeed gelisaan diila cusub waxaa xusid mudan in ummadda Soomaaliyeed ay golahan ka sugayso hawlo mug leh oo waaweyn waxay tihiin rajadii Soomaaliya ka saari lahayd jahwareerka siyaasadeed waxaa la idinka fadhiyaa inaad dhidibada u aastaan dowladnimada Soomaaliya dalkana aad ka hirgelisaan dheelitir iyo xasilooni siyaasadeed idinka oo isu dheelitiraya danaha dowladaha xubnaha ka ah dowladaha federaalka ee aad matashaan iyo danta qaranka haddii aan warbixin kooban idinka siiyo waqtiga yar ay jirtay xukuumadda waxaa la qabtay howlo lixaad leh arrimaha dhaqaalaha waxaa tilaabooyin muuqda laga qaaday hagaajinta maamulka iyo maareynta maaliyadda iyadoo dhaqaalihii yaraa ee dowladda soo galayay loo maamulay si waafaqsan nidaamka maaliyadda waxaan ku guulaysanay inaan bixinno mushaharaadkii ciidamada shaqaalaha rayidka ah iyo xildhibaanada baarlamaanka labada aqal wajigii halista ahaa ee abaarta waa la xakameeyey laakiin abaartu waa mid joogto ah waxaan u baahannahay inaan helno istiraatiijiyad qaran oo abaaraha iyo xaalufka si kama dambays ah aan uga adkaanno cunto naga badanna aan u soo saaranno arrintaasi waxaan uga hortagi karnaa marka oo annaga qorshe noo ah iyadoo la soo saaro biyaha dhulka hoostiisa ku jira ama underground water kaliya ma aha inaan sugino roobka ama aan ku xirnaano webiga macnaheedu waxay tahay tan waa midda istiraatiijiyada ah oo annagu aan ka shaqayn karno iyadoo laga faa'iideysanayo cilmiga iyo tiknoolajiyada casriga ah xukuumaddu waxay heshiis hordhac ah ama MOU ay la gashay shirkad sahmisa biyaha dhulka hoosteeda ku jira oo ay Soomaalidu leedahay waxaana qorshaheenu wuxuu qorshuhu yahay in 24 bilood ee soo socda dalka oo dhan la sahmiyo iyadoo la adeegsanayo satellite waxaana ku dhawaaqayaa inuu kalfadhigan labaad inoo furan yahay waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Soomaali ha noolaato Soomaali ilaahay ha nooleeyo